horeyn adoo ku bilaabayo magacaaga bal waxaad naga warantaa maxaa kugu dhaliyay in aad furto jaamacadda aad u mahadsan tahay waa dhawahay magacayga waxa waay Naciima Cabdiraxmaan markii ugu horeysay ugu dhalatay in Hodmans Institution ka aasno waxay ahayd back in 2016 laakiin xilligaas waxaa la shaqeynaa jaamacadda Malaysia ku yaalo soo markaa aragti farqiga u dhaxeeya jaamacadaha ka jiro adduunka iyo jaamacadaha dalkeena ka jiro waxa dareemay gaabka u dhaxeeya iyo meesha wax ka maqan yihiin 4 sano ku dhawaad waxaa la shaqeynaa jaamacadda Malaysia ku yaalo marka mar walba waxay ahayd dad idea oo madax gadaal kaaga taagan laakiin aad raadinaysid meelaha ka bilowdid iyo meelaha ku dhameysid iyo in family waxbarasho ah ka soo jeedo oo aabahay qof waxbarashada ilaa muddo hore ku jiray ahayd marka in short waxa dhihi karaa waxbarashada waxay ahayd something oo madaxiga ku jirtay oo mar walba is dhihi karay hadii waxbarashada ama higher education ka si dhex gashid inay tahay yani meel oo impact badan oo ku sameynaysid dad badan saameyn ku yeelanaysid in ma jiraan wax caqabadaha oo aad ka martay inta aad ku guda jirtay furitaanka jaamacaddan horta caqabadaha list dheer ay noqonayaan laakiin caqabado walba ayagoo fursad loo bedeli karo laakiin haddana waxaa jira caqabado oo aad ku saameynayo tan koowaad markaa dhalinyaro tahay oo muqdisho aad joogtid qofku aaminaysa ma lahan oo dhalinyaradeenna ma ogtahay talada iyo go'aanka waaridka looga haraa iyo waayeelka soo taas caqabada ugu horeysay ahayd labo ma jirin gabdho higher education sector ku dhex jiro oo maanta aan dhihi karo hiblaayo intay ka bilowday iyo maxaa waa istaragalkii waxyaabahaas oo ma jirin qof maanta aad dhahayo in higher education oo ku daysan kartaa oo waa fiirin kartaa tan saddexaad ugu adagna waxay ahayd financing markaa gabar tahay dhalinyaro tahay labadaas isku darsatid qof ma jiro maanta inta u tagtid ra'yigaaga u sheegtid aad dhihi kartid this is lacagta u baahanahay institution-kana wadna yani ma isbalance garaynayso so I would say in short dhalinyarada magaalada dhan ay ka sameeyeen waxa waaye ma jiro financing ma jiro dhalinyarada loogu talagalay maanta markaa bangi tagtid bangiyada magaalada ku yaala dhan waa male dominated oo go'aanka decision making wax walba raga iska leh soo markaa dhalinyaro tahay dumarna aad tahay that is the biggest no arkaysid unless oo jirin qof caan ama qof family ku gadaal taagan oo maanta dhahayo ruuxan qofkan loo fududeeyo tan dheeraadka waxa waa mar inaa gabar tahay Naciima jaamacaddan maxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale dalka ka jira for starter academic policy jaamacadda ama sharciga jaamacadda u degan aan raacayno waxa aaminsanahay dhammaan jaamacadaha magaalada inaan kaga duwanahay programyada jaamacadda ay bixiso 80% waxa dhihi karaa waa programyo jaamacadaha dalku yaal badankood aysan bixinin programyo cusub soo introduce gareynay renewable energy ku jirto in ardayga renewable energy diyaarin karo in ardayga cyber security sameyn karo software development ee ardayda la bari karo taas waa taas tan labaad gabdho badan waxa ku bashgareynaa inay aadaan waxyaabaha technology iyo wax isla xiriiro waqtiga gabdhaheena waxa la lahaa guriga joogay jaamacad markaa dhameysid and all those things so marka waxaan rabnaa ina gabdhihii not only nursing iyo medical inay aadaan but more of like waxaa jiro boqolaal course aad baran kartid if you decide inaad gurigaaga joogtid wili aad ku shaqeysan kartid haddaa banaan ku baxdid oo wiil rabtid inaad shaqeysan kartid taas waaye tan kale waxaa isleeyahay waxaa waaye it's waxyaaba ugu duwanaa jaamacadaha kale waxaa decisionska jaamacadaha kale dadka ka shaqeeyo majority of it waxaa waaye dad oo maxay ahayd toonay xanuunka dhalinyarada dareemaya aan ogeyn maanta jaamacadaha ugu waaweyn dalka markaa fiirisid board memberskooda aad fiirisid maamulka guud aad fiirisid final decision dadka qaato dad waxaa waaye aan ogeyn dhibaatada ay leedahay inaa shaqo la'aan qof dhalinyaro shaqo la'aan ee magaalada joogno jiro soo dad badan oo dhalinyaro oo wax soo baratay oo ilaa PhD haystaan isku imaaday adiga ahaan sida isku aragtaa maadaama aad ka mid tahay haweenka farakutiriska ah aasay ama maamulka ah jaamacadaha dalka ku yaal gaar ahaan magaalada Muqdisho inuu fikir dheer u baahan tahay the reason asaas u dhahay waxa waaye waxyaalaha qaar ragga ku badan qof dumar markoo field rag ku jiro soo dhex galno waxa lagu dhahay it's male dominated like in the way ani hadda u arko waxa waaye gabdhaheena maamooyin badan waxaa jiro primary education ki waxyaabahaas aad ugu jiro higher education ma nagu la yaqaano as a female as dumar ahaan marka waxa isleeyahay
wax walbo negative ama xumaan ka imaanaysa ama caqabad positive oo bedeli karna waxa laga yaabaa gabar ku fikiraysa in institution maamusha inay inta maanta aragtay dhada hadday Naciimo sameyn kartaa I can do it too ma fahmaysaa halkee ayaad hiigsanaysaan inaad gaadhaan mustaqbalka dhow well tusi ardayda inuu qalin jabi soo shaqeeyo magaalada laga yaqaano in arday markuu shahaadada hodma sooto ama bachelor ha ahaato ama master ha ahaato ama certificate ha ahaato inuu noqon karo qof bulshada laga dhex qadiro dhigi karo qofkan institutionkaas kusoo qalin jabiyey iyo in maxay doonay requirements waxyaabaha looga baahan yahay jaamacad ma u fiirinayna standardka Soomaaliya ka jiro standardka Afrika ka jiro laakiin worldwide jaamacad maxaa waaye structure-keeda iyo waxyaabaha looga baahan yahay inaan buuxino